السلام عليكم meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah khilaaf uu sabab u yahay Cristiano Ronaldo oo ka dhax qarxay tababare Erik ten Hag iyo Joel Glazer barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Manchester City oo dhameystirtay saxiixii afraad ee suuqan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan kooxaha ilaa haatan iska diiday saxiixa Cristiano Ronaldo sababtu maxay tahay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan Chelsea oo heshiis cusub ka saxiixaysa tababare Thomas Tuchel barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka ayaad ku daawan doontaan heshiiskii Manchester United ay kala gaartay saxiixa Frank de Jong ee kooxda Barcelona oo burburaya Liverpool oo bilaaweeryahan ciyaari karta kulanka Manchester United ee toddobaadkan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka fadlan hadaad ku cusub tahay like inoo saar subscribe dhegeysta share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina Joel Glazer oo kamid ah milkiilayaasha Manchester United ayaa meel adag iska taagay arinta xidiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo waxaana taasi keentay inuu khilaaf ka dhax curto isaga iyo tababare Tomida uu hadda soo qaray wargeyska Daily Mail oo warkaan uu yahay war degdeg ah uu daawacay xidiga 37 sano jirka oo habdhaqankiisa aan fiicneen uu sameeyay kadib ciyaartii Brentford ay 4-0 ay ku garaacday Manchester United oo uu salaami waayay tababare Erik ten Hag iyo Mike Gallagher ayaa waxaa loo sheegay in Joel Glazer uu ku adkaysanayo inuu sii joogo kooxda Cristiano Ronaldo wax walba oo dhaca sidoo qoray wargeyska Main ee ka soo baxay magaalada Manchester Erik ten Hag ayaa go'aansaday in kooxda laga diro Cristiano Ronaldo uu ku eedeeyay in uu abuurayo deganaansho la'aan waxaana arintaasi hordhigay boardka kooxda mise maamulka sare ee Manchester United hase yeeshee Joel Glazer ayaa si cad ugu sheegay in aanay Cristiano Ronaldo cidna ka muhiimsaneyn Ronaldo isla markaana uu joogayo kooxda wax walba oo dhac waxaana uu sheegay in Cristiano Ronaldo aan meelna uga socon kooxda Manchester United wakiilka Cristiano Ronaldo la sheegay inuu ku sugan yahay magaalada Manchester ayaa waxa uu isku dayayaa in uu wada hadallo kale la yeesho Manchester United oo ku qanciyo in xidiga loo ogolaado inuu isaga tago xagaagan si uu ugu biiro koox ciyaaraysa tartanka Champions League maadaama Manchester United sanadkan aan ciyaareyn tartanka Champions League waxaana wakiilku uu sheegay in Manchester United kulamadii ugu dambeeyay ay ahayd mid qaab ciyaareed aad u liita ay ku soo bandhigaysay garoomada Cristiano Ronaldo hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa xagaagii hore u saxiixay Manchester United oo uga soo wareegay danka Juventus ayaa 38 kulan u saftay tartamada waxaana uu dhaliyay 24 gool waxaana uu ka mid noqday liiska ciyaartoyda ku tartamaya abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadkii hore waxaana sidoo kale Manchester United ay doonaysaa in xidigan ay iska iibiso Manchester City ayaa xaqiijisay inay dhameystirtay saxiixa xidiga Sergio Gomez kaasi ay kala soo wareegtay kooxda Anderlecht kana dhigtay saxiixa cusub ee kooxda Manchester City xagaagana ku soo biiraya Manchester City ayaa Gomez ka saxiixtay heshiis 4 sano oo ku joogi doona kooxda difaacanaysa horyaalka English Premier League Manchester City xidigana 21 sano jirka ee daafac bidix ka ciyaara ayaa noqday saxiixii afraad ee sameysay kooxda Manchester City suuqa xagaagana kadib markii kooxda ay la soo wareegtay Erling Haaland, Calvin Phillips iyo xidiga Steven Ortega xidiga reer Spain oo ka hadlay dareenkiisa kadib markii uu ku biiray kooxda Manchester City ayaa waxa uu yiri run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku soo biiro Manchester City waa kooxda ugu fiican England fursad ahaan waa koox aad u fiican waxaana uu yiri meel fiican ayaan imaaday in aan qayb ka ahaado kooxda Manchester City waa riyaana ku riyoon jiray ayuu yiri xidigaasi ee ku soo biiray kooxda Manchester City
xidiga Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa ilaa haatan ku dhibaatoonaya inuu helo koox uu ku biiro inta lagu gudjiro suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee xagaagana. Cristiano Ronaldo ayaa bilowgii xagaagan dalbaday inuu isaga tago kooxda Manchester United si uu ugu biiro koox ciyaarta tartanka Champions League. Wakiilka Cristiano Ronaldo ayaa si weyn uga shaqeynaya sidii xidiga uu koox cusub u heli lahaa. Xidiga reer Portugal inta lagu gudjiro suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. Wakiilka Cristiano Ronaldo ayaa saxiixa xidigan u soo bandhigay kooxaha ugu weyn ee qaaradda Yurub ee xagaagan, gaar ahaan kooxaha ciyaara tartanka Champions League, laakiin kooxahaasi ayaa dhammaantood iska diiday in ay u dhaqaaqaan saxiixa Cristiano Ronaldo iyagoo iska indhatiray saxiixa Cristiano Ronaldo oo wakiilkiisa u soo bandhigay kooxahaasi. Ilaa haatan wakiilka Cristiano Ronaldo ayaa saxiixan u soo bandhigay ilaa 7 kooxood oo ay ka mid yihiin kooxaha ugu weyn qaaradda Yurub sida AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, PSG iyo Atletico Madrid. Dhammaan kooxahaasi waxay yihiin kooxaha wakiilka Cristiano Ronaldo u soo bandhigay in Ronaldo uu ku biiro. Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa lagu soo waramayaa in uu wada hadallo heshiis kordhina uu kula jiro kooxdiisa Chelsea. Tababarahan ayaa shaqada kala wareegay Frank Lampard bishii January ee sanadkii 2021 waxaana uu kooxda kula guuleystay tartanka Champions League qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkaasi. Tuchel ayaa kadib kooxda kula guuleystay koobka UEFA Super Cup iyo Club World Cup, halka uu xilli ciyaareedkii hore kooxda uu geeyay finalada koobabka kale ah League Cup iyo FA Cup. Heshiiska Thomas Tuchel ee Chelsea ayaa dhici doona dhamaadka xagaaga dambe waxaana uu shaki ku jira mustaqbalkiisa kooxda ku ciyaarta Stamford Bridge. Sida laga soo xigtay wargeyska The Sun, Chelsea ayaa wada hadallo la furi doonta tababarahan si ay u hubiso in uu sii joogo kooxda wixii ka dambeeya heshiiskiisa. milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea ayaa doonaya in Thomas Tuchel uu ku duugo qalinka heshiis cusub oo 2 sano waxaana uu kooxda sii joogi doona ilaa xagaaga 2026. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in war xun ay ka heshay baacsiga ay ugu jirtay saxiixa xidiga Frank de Jong kadib markii heshiiskii ay la gaareen kooxda Barcelona uu burburaya. Devils ayaa xagaagan oo dhan doonaysa xidiga 25 sano jirka iyadoo Erik ten Hag uu doonayo in xidigan uu kula midoobo Old Trafford. Manchester United iyo Barcelona ayaa ka heshiiyay saxiixa xidigan Frank de Jong iyadoo Devils ogolaatay in ay xidigan ka bixiso lacag gaaraysa 72 milyan oo euro, laakiin Manchester United ayaa ku fashilantay in xidiga Frank de Jong ay ku qanciso in uu soo dhaqaaqo dhanka garoonka Old Trafford. Sida laga soo xigtay wargeyska The Telegraph, heshiiskii Manchester United ee saxiixa Frank de Jong ee kala gaartay Barcelona ayaa burburay maadaama ay dhaaftay waqtigii Barcelona ay u qabatay in ay ku dhameystirto saxiixa xidigaasi ee kooxda Manchester United. Manchester United ayaa ilaa haatan ay doonaysaa in xidigan Frank de Jong ay geeyaan garoonkooda Old Trafford. ugu dambeyntii xidigaha Darwin Núñez iyo Roberto Firmino ayaa la sheegayaa in ay seegayaan kulankaasi sabab la xiriirta dhaawac iyo ganaaxa. Darwin Núñez ayaa ganaax ku seegi doona kulanka kadib markii loo taagay kaarka cas ee tooska kulankii Crystal Palace ee horyaalka Premier League. dhinaca kale xidiga Roberto Firmino oo dhaawac ku sigay kulankii Crystal Palace ayaa seegi doona kulankaasi, sidoo kale sababta ayaa lagu sheegay in xidigan uu weli dhaawac uu qabo. warkan ayaa ah mid u xun kooxda Liverpool kuwaasi oo aan wax guul ah ka gaarin Premier League labadii kulan ay ciyaareen. guud ahaan waa naga intaa qodobada wararka ciyaaraad kala socoteen horyaalka ciyaaraha adduunka.